kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idin ahaantiina meel walba joogtaan waxaan leenahay kusoo dhawaada barnaamijkeena faaqidada ciyaaraha iyo toddobaadkan wixii laga dhahay suuqa kala iibsiga sidoo kale haddii aad page-keena ku cusub tahay fadlan waxaan ka codsanayaa inaad like-ta iyo comment-igeena ugu dadaashaan siina share gareeya followna inoo dheh page-ka haddii sidoo kale inta aad ku cusub tahay YouTube-keenana subscribe inoo saar siina share gareey mahadsanidin haddaba aynu ku hormarno qaar ka mid ah qodobadii ugu doorka roona ee maanta aynu markaasi ku faaqidi doono barnaamijka faaqidada ciyaaraha ayaa waxaa ka mid ah in kooxda Real Madrid ay doonayso laacibkeeda Rodrigo inay ku iibiso lacag gaaraysa 77 milyan laacibkan ayaa waxaa lala xiriirinayaa qaar ka mid ah kooxaha ka dhisan Premier League ee dalkaasi Ingiriiska walow Arsenal ay markaasi u leelinayso hoggaanka rabitaanka ciyaaryahankan ee kooxda Real Madrid u dheelay Rodrigo haddaba ciyaaryahankan ayaa lagu soo bandhigay lacag gaaraysa 77 milyan haddii uu markaasi ay kooxdii keento la sii doono sidoo sheegay macalinka kooxdaasi ee Real Madrid ee Xavi Alonso sidoo kale waxaa markaasi Arsenal ay soo bandhigtay rabitaankeeda ku aadan ciyaaryahanka Barcola ee kooxda PSG u dheela oo ay dhawaan sheegtay inuu markaasi sanadkan meel uu ka aadeynin ciyaaryahankaas kooxda PSG haddaba sidoo kale Arsenal waxay sheegaysaa inay u baahan tahay Barcola oo ay doonayso inay ku buuxiso garbaha si markaasi weerar aad u fara badan ay kooxdu yeelato haddii ciyaartoyda sidoo kale Martinelli iyo wiliba Saka dhawacyo soo gaara ay doonaysaa inay markaasi backup kaga dhigato ay ku bedelato ciyaartoydaas boosaskaasi haddaba sidoo kale rabitaanka kooxda Arsenal ayaa markaasi wuxuu u muuqdaa in ciyaartoy aad u fara badan ay sanadkan doonayso kadib markii ay markaas soo dhameystirtay saxiixa ciyaaryahanka Supermendi oo ay kala soo wareegtay Real Sociedad iyo sidoo kale ciyaaryahanka Keba oo goolhaye u ahaa kooxda Chelsea oo loan kaga maqnaay sanadkan haddaba Keba ayaa markaasi maanta la filayaa inuu markaa heshiiska complete gareeyo oo la dhameystiro si markaasi heshiiskaas u dhamaadana maanta uu maro tijaabada caafimaadka ee kooxda Arsenal uu maro haddaba sidoo kale labadaas ciyaartoy maadaama macallin Arteta oo la soo wareegay waxay ka dhigan tahay in Willy Steele oo doonayo ciyaartoy kale oo dhowr ah oo hadeertan wajiga kooxda Arsenal ama qaybta afka hore ay doonayaan markaasi inay dhameystiraan ciyaaryahan walow Benjamin Sesko oo markaasi kooxda RB Leipzig ay ka dhigtay xujo aad u adag in markaas ciyaaryahankaas ay kooxda Arsenal gadato ciyaaryahankan ayaa RB Leipzig waxay ku tilmaamtay in 100 milyan oo lacagta euro ay u baahan tahay sidoo kale ciyaaryahanka ayaa sanad labaadka oo soo bandhigtay ee noqotay mid aad u fara badan sidoo kale wakiilka ciyaaryahanka ayaa waxa uu qayb kaga rabaa lacagta ay markaasi lagu gado ama ay qaadato kooxda RB Leipzig qayb kamid ah ayuu u baahan yahay wakiilka taasna waxay keentay caqabad ku aadan kooxda Arsenal inay markaasi u awoodi waayaan inay gataan ciyaaryahankaasi maadaama caqabado fara badan ay ku gadaaman yihiin ciyaaryahan Benjamin Sesko aad ayuu ugu adkaatay xaaladiisa waxaana markaasi la filayaa ciyaaryahanka Gyökeres inay Sport Lisbon inay markaasi u wareegaan walow ciyaaryahankan wax waliba oo doonayo oo markaasi ku aadi lahay kooxda Arsenal oo u sameeyay kooxda laakiin Arsenal ayaduna way ku adag tahay inay markaasi dalab ay ka gudbiso ugu dambeyntii barnaamijkeena waxaa soo gaarnay qodobkii ugu dambeeyay oo ahaa kooxda PSG iyo Inter Miami ayaa laga yaabaa dhamaadka 16aadka inay isku imaadaan ama quarter finalka ay isku soo aadaan kooxda PSG iyo waliba Inter Miami oo AC Milan sidoo kale Inter Miami oo markaasi aan dhahe oo hogaaminayo kooxdaasi ciyaaryahan Leo Messi iyo waliba PSG oo asna markaasi hogaaminayo ciyaaryahan Ousmane Dembele haddaba waxaa la filayaa sidii markaasi labadaas kooxood iskugu soo aadaan 16aadka saaxiibayaal haddii aad nala soo gaarteen ilaa dhamaadka barnaamijkeena waxaan ka codsanayaa inaad follow inoo dhahdaan page-ka siina share gareysaan si asxaab badan ay u gaarto waxaan tartan kula jiraa qaar ka mid ah dadka South Africaanka ah ee dalkan Koonfur Afrika la joogo dhalinyaradooda sportiga tabiya waxaana mar walba hoos u dhac laga dareemayaa page-kayga oo aan saaxiibadeyda asxaabteeda Soomaalida ah ayna sii share gareynaynin comment iyo like-na aan ka baxsanaynin warbixinada keeno fadlan aad baad u mahadsantihiin saaxiibayaal waan ka codsanayaa mar kaleento in page-kayga aad sii share gareysaan shirta ay ugu dadaashaan iyo commentiga iyo like-ka mahadsanidin haddii aad ku cusub tahay ii follow gareey si asxaabtaada ayaguna oo helaan mahadsanid. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi